maanta waxaan qaadaynaa wasaaradda waxbarashada way qaadaysaa imtixaankeedii marka anoo ka mid ah ilaaliyaasha imtixaanka gabadhan ayaa halkan ugu imaanay saaki si liisu dhibay imtixaanka koowaad ee maadada Soomaaliga ayaa u dhamaaday hadda waxaan rabaa marka inaan siino maadada labaad ee galaysa ee juqraafiga ah marka maadadaas hadda sii doona Abdullah wala aad iyo aad baan u faraxsanahay waa fursad aad u wanaagsan oo ay siiyeen wasaaradda waxbarashada waan uga mahadcelinayaa waxaa laayay cunugii aan dhalinaa wuxuu ku jiraa koomo insha Allah waxaan rajaynaynaa ka soo baxaa wasaaradda adiga ma ka codsaday mise wasaaradda iyada ku garatay imtixaanka ku gasho isbitaalka walaani qof oo patient ah ilaa isbuuc camal codsiga maxaa laayay waxaa gudbiyay maamulka iskuulka maxaa laayay ka bacdina wasaaradda waxbarashada waxaa la sheegay intii ugu imaanayso wax kale information iskoolka dhiganaysa magaciisa wallahi waxaan ugu baaqi lahaa inay maxaa laayay dadka oo ay jaaniskan oo kaleeto inay ka faa'iideystaan oo ay wixii dhibaato ay dawladda u gudbistaan tahay in imtixaankeeda lagu keeno halka ay ku sugnayd oo isbitaalka waxayna ku faraxsan tahay iyadoo ku curatay wiil kadibna imtixaanka ku galaysa bukaankan aad arkaysiin waxaa la yiraahdaa Shamsu Maxamed Xaashi isbitaalka wuxuu ku xirnayd in muddo ah markii hooyada uurka leh ee soo yeelatay ilaa hadda ma sha Allah aad u soo dhaweynay Shamsu daryeel aad u fiican aan siinay oo ah wax dhibaato la meesan kulmin يعني وحي u baahneed oo daryeel ah hooyada way